dagaalamayaasha al-shabaab waxay weerar qarax loo adeegsaday ay ku qaadeen xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir 24 bishan waxaana halkaasi ku dhintay mas'uuliyiin badan iyo shaqaale ka tirsan xarunta gobolka. dadka weerarkaasi ku dhintay waxay gaarayaan 10 qof waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 10 kale oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariso. wariyaha ammaanka ma shaacin nooca weerarka waxaana soo baxaya warar sheegaya inuu ahaa weerar ismiidaamin ah oo ay fuliso qof dumar ah halka warar aan badnayn ay sheegayaan inuu ahaa qarax goobta lagu diyaariyay. in xarunta gobolka oo meel aad loo ilaaliyo ay galaan al-shabaab waxay marqaati ka noqotay habacsanaanta amni ee dalka iyo qorshe la'aanta dawladda. sidoo kale arrintan waxay toosh ku ifisay in aan lagu kalsoonaan karin amniga xafiisyada dawladda maadaama uu weerarkan ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka oo ka tirsan xubnaha ugu sarreeya ee hoggaanka dalka sidoo kalena uu ka badbaaday wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan. dhowr su'aal ayaa ka dhashay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose kuwaas oo kala ah qaraxa dhacay ma waxa uu ahaa ismiidaamin mise wax goobta lagu diyaariyay sidee waxyaabaha qarxa ama qof isoo miidaamiye ku gala xarunta dawladda hoose yaa weeye qofka al-shabaab u sahlay inay galaan aqalka dawladda hoose oo kamid ah meelaha aadka loo ilaaliyo miyaysan arrintan caddeyn u ahayn in al-shabaab xubno sare ay ku leeyihiin xafiisyada dawladda jawaabtii loo baahnaa ma ka bixisa weerarkan dawladda Soomaaliya miyay ka go'an tahay in la xisaabtanto hay'adaha amniga haddii ay ka go'an tahay maxaa loola xisaabtan waayay mas'uuliyiinta amniga ee xarunta la weeraray iyo kuwa kale ee ka sarreeya. Cabdullaahi Nuur Xaashi oo kamid ah saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka ayaan weydiiyay dhaawaca ee dawladda iyo qarankaba ku tahay weerarkan ee al-shabaab ay ku galeen xarunta dawladda hoose isla markaana ay ku dileen mas'uuliyiin badan. xarunta gobolka Banaadir oo sida la sheegay ay aad u adag tahay in la galo sababta ay ku dhacday inuu qaraxaasi xafiiskii iyo kursigii gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha uu gaaro waxa weeye waxa la yiraahdo waa wajiga qiimaha wajiga waay oo ah qofkan hala sii daayo ama qofkan qof uu la socdaa amniguna waxaaba ka xaraana in wajiga qofka iyo garaadihiisa iyo magaciisuba ay qiimo ku dhex yeeshaan amnigu waa inuu ku shaqeeyaa qodobo xadiid ah oo aan cidina ka talaabsan karin oo hadda maqan. xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jindi oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaba in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan raali ka ahayn in la xisaabtamo mas'uuliyiinta amniga isla markaana dhowr jeer ay hortaa ku sameysay in la weydiiyo su'aalo ku saabsan habacsanaanta amni ee dalka ka jirta. mushkiladda taagan ee shakiga imaanayaba waxa weeye mas'uuliyiinta qaar kamid ah ama xilkan wax ku leeyihiin baad sidahay iyo shaqada noocan ah haddii qalab maaliyadeed la soo sheego madaxdii sare hor istaagayso oo aanan ogolayn haddii amni dhibaatadan oo kale inta ay dhacdo bedel ma dadkii meeshaasi u taagnaa on sport ama isla markaasba baarinta lagu sameeyo yani wax istifaala oo bixi lahaa way caddahay in la dabaray haddaanan ilaa hadda waxba loo soo qabanin oo al-shabaab waxay mareen habaabin ku wadaan hay'adaha ammaanka waxayna soo saarayaan warbixino isdaba joog ah oo ku saabsan weerarkan. warbixinada al-shabaab ee qarax oo aan islahayn waxay u muuqataa in lagu jahwareerinayo hay'adaha amniga ee baaritaanka wada waxayna ku dadaalayaan al-shabaab in aan la helin xogta qaraxa si aan loo ogaanin cidda u fuudeysay inay galaan xarunta gobolka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre weli kama uusan hadlin weerarkan xataa kama tacsiin halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax ka badan 24 saac kadib oo isugu yeeray hay'adaha ammaanka mana qaadanin go'aano lagu qanco. Cabdullaahi Nuur Xaashi ayaa qaba in madaxda dawladda Soomaaliya aysan ilaa hadda muujinin dareenkooda ku saabsanaa weerarkan ay dad badan oo mas'uuliyiin ah oo haldoor ka ah gudaha dalka ay ku dhinteen. fududayntii ay fududaysteen mas'uuliyadda ka saaran xagga amniga ay fududaysteen ayaa waxay bixisay jawaab iskeeda oo ah mar haddii gobolkii la galay madaxtooyada ku xigta xafiiska prime ministerka ku xiga hadda waa la soo dhaafay qofaa meel hebel lagu dilay qofaa gurigiisa lagu dilay oo individual hadda waxaa la marayaa test waay xarumihii ugu dambeeyay waay oo ugu security-ga badnaa oo ugu qarashka badnaa oo ugu qalabka badnaa oo la islahaa waa meelaha amniga ah ayaa hadda testigii maraya. dad badan ayaa qaba in al-shabaab ay u fududahay inay weeraro kale ay ka geystaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda waxaana muuqata habacsanaan weyn oo dhanka ammaanka ah. Janaal Maxamed Nuur Galaal ayaa amni darrada dalka ka jirta iyo guuldarrooyinka ku yimid in al-shabaab dalka laga saaro waqtigii loo qorsheeyay wuxuu ku micneeyay labadan qodob. wallahi waxaan isleeyahay maaragtay nimankaan oo niman xalaawayaala in la iska qabto moogiine wax kaloo waana iyo ma jirto warkaas lagu dayimaayo marka waxaan kala garan lahaa in dadkii arrintaas ka shaqayn lahaa inayan jirin iyo qaabkii looga shaqayn lahaa inayan jirin haddii dadkii jira laakiin qaabkii maqan yahay
waxba faa'iida ma leh haddii qaabkii jira dadkiina uusan jirin fulin lahaa ayana qayb ma leh waa khasaaro kale haddii labadiiba maqan yihiinna waa wareer iyo waali waa kasii daran waa ka daro dibi dhal weerarkan ay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen aqalka dowladda hoose waxa uu dharbaaxsho kulul ku yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labadii sano ee lasoo dhaafay hoggaankiisa ku guuldareystay inay al-shabaab ka adkaadaan sidii uu ballan qaaday ka hor iyo kadib doorashadiisa qobarada amniga ayaa qaba in madaxweynaha Soomaaliya halkii laga sugayay in al-shabaab dalka kaga saaro waqti kooban hadda uu maari la'yahay sugidda ammaan